سياسة عبدالغني سلفي حقيقة حريركا gobolada bariga iyo galbeedka ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka ayucid oo maanta u waramaya telefishinka caalamiga ee Kalson TV ayaa ka hadlay wafdi safir oo ka socday midowga Yurub kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda deegaanada Soomaaliland sidoo kale xogayo waxa uu ka hadlay kulan degdeg ah isugu yimaadeen saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadan iyo ayucid kulankaasi oo daarana khilaaf u dhaxeeya xisbiyada sidii xal weyn lahaayeen qabsoomida doorashooyinka qabsoomisa dabayaaqada sanadda 2019 waftigaasoo mid la mid markii noogu dambeysay uu inoo yimi waqtigii sidan oo kale ay ka taagnayd hadalku ka taagnaa doorashada qabsoomidii doorashadii madaxtinimada Siiraayo ku soo baxay marka qolooyinka donorska ama qaran bixiyaasha inaga caawiyo doorashooyinku ujeedada ay u yimaadeen waa inay dardargeliyaan doorashada sideen wada ogsoonahayna doorashadu sanadkan inay dhacdo ayaynu filaynaa oo ay sidii hore loo qorsheeyay sanadkan bishii 12 inay dhacdo ayaynu filaynaa hadii Ilaahaydmo nimanka imaantooduna arintaas ayuun bay magaranaysaa u socdeen doorashaduna waxay dan u tahay dadweynaha iyo dawladda reer Soomaaliland shacabka dan u tahay dalka dan u tahay doorashadu waxa kor u qaadaya horumarka iyo hanaangeedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland marka mar walba anagu xisbi ahaan waxaanu meel fiican ka taaganahay oo aanu dhiirigelinaynaa in doorashada la qabto oo aanu ugu baaqaynaa xisbiyada kale ee qaranka haday noqoto xukuumadda haday noqoto xisbiyada kale mucaaradka xisbiga wadani iyo wixii waxaan leenahay doorashada wax walba aynu ku horeysiino si danteena guud ayaa doorashada ku xidhanay u meel marto wax walba intaan dhulka sadhna doorashada aynu qabsano marka arintaas waa arin aan xisbiga u cid anagu mar walba naga go'an waxa naga go'an oo kale labada xisbiga kale in isku soo jiidno oo wadan iyo kulmiye mar walba anaga udub dhaxaad oo isku soo jiideynay sidaad sheegtay xafiiskayga waxa lagu qabtay shalay toole shir degdeg oo saddexda xisbi taasina waxa ay ku tusaysaa oo ay daliil cad u tahay in xisbiga uu doorkiisu yahay isku soo jiidka iyo isku keenida xisbiyada qaranka dhanka kale xogayaha dalkiisa si wataya waxa uu ka hadlay Xuseen aad dhawaan dab ku haleelay hoyga ay deganayeen dadkaasi oo degan bariga magaalada Hargeysa la marhaantana maalmo ka hor uu dab ku qabsaday hoyadii ay deganeen halkaas ay ku nafwaayeen saddex ruux halka afar ruuxna ay ku dhaawacmeen hadaba mas'uulkan ayaa waxa uu ka eedeeyay mas'uuliyiinta dawladda hoose inay yihiin kuwa hawshoodii gabay isla marhaantana adayacay dadkii danyarta ay ku dhaqana magaalada aad iyo aad mahadsantahay Cabdiqani haddii aan ku socdo wareysigana waxaa jirtay dhawaan mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa waxa oo dadka yaryar degan yihiin waxa ka soo ifbaxday dhibaato aad u weyn taasoo dab qabsatay bal maxaad taayada ka oranaysaa arintaas wallahi waa nasiib darro xaafadda Istanbul waa markii labaad ay gubato 4 sano in waqti ka badan 4 sano in ka badan ayaa maayarkan Hargeysa iyo golaha deegaanku ay siiyeen dhul waraaqa beenaysiin oo yiraahdeen waa mulkiyadii dhulka digi doontaan dadkaas waa dad iska tabaalaysan isaguna si jees uu maayarku sheegay oo yiri dadka waxa ku jira dad lacag haysta qof lacag haysta buul yaro ku yaala xaafad yaro dhaxantu ka dhacayso habaas ku yaalo u malayn maayo inuu ku ciriiriyo dadka dan yarta Soomaali Cabdi Axmed Karin le Kalson TV Hargeysa